Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Waa Sumaya. Intii aan garanaynin inta channelka ku cusub soo dhawaada. Family hore ee channelka ku jiray ee channelka ku xidhnaana. Thank you so much for your support, and for the new ones, thank you for a new subscription. I really appreciate your support, all of you. It really means a lot. It's really going to help this channel move forward. And I get to so that badan بإذن. So welcome back. waxaan inoo socotay taxano ka hadlaya caafimaadka caloosha. taxanahaas caafimaadka caloosha ka hadlaya sida caloosha cunto burburisay waxyaabooyinka caawin kara ayaan rabnay insha Allah tacaala inuu taxaneen inoo sii socdo. qofkii videogan hadda daawanaya aan weli daawanin qaybtii koobaad iyo qaybtii labaad iska dami videogan soo daawo qaybtii koobaad iyo qaybtii labaad noo soo noqo insha Allah tacaala si aad noola socotid. marka welcome back insha Allah. I hope kulligeen caafimaad inaad qabtaan aad u wada faraxsan tihiin. tobankii ugu dambeeyay Ramadaan baa lagu jiraa 2020. waana sii dhammaan rabtaa marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la kulansiiyo laylatul qadar. Ilaahay kulligeen dambigan ha dhaafo. kulligeen caafimaad baan idin wada rajaynayaa. So channelkan insha Allah tacaala wuxuu aad uga hadli doonaa caafimaadka intiina hadda videogan ku cusub ee daawanaysa. intii hore noo socotay way ogtahay caafimaadka jirka, caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka ruuxda. marka is your body, mind and soul. qofka bini'aadamka saddexdaas uu ka kooban yahay inay maskaxdiisa fayowdahay ay caafimaad qabto, inuu jirkiisu caafimaad qabo, iyo in ruuxdiisu caafimaad qabto. saddexdaba waa inaad qofku u kala qaybiyo mid walba gaar u daryeelo uu ka warhayo. marka biidni illaahi tacaala waxaan sameynaynaa saasaan u wadanaynaa. maanta waxaan ka hadlaynaa xameytida. dad badan baa isoo weydiiyey xameytida laga hayaa, xameytida maxaan sameeyaa, meel iska nadiifin karaa, ma iska soo saaraa, dhakhtarku wuxuu yidhi iska soo saar. marka badanka xameytida dhowr wax baa ku dhaca. xanuunada way iska xoogay waa ku dhici karaysa inflammation baa ku dhaca. waxaa ku dhaca cancer, wacyadu billah. waxaa ku dhaca in qofka lagu sheego dhagxan oo lagu dhaha dhagxan baa xameytida kugu jirta. okay, marka haddii maanta lagugu sheego dhagxan inay xameytida kaaga jirto, maxaa kula gudboon? dee marka hore qofka horta waa kusoo bood. qofka waa kusoo booda una xanuun baa kusoo booda, halkaas bogu is qabanayaayo yacnihii xanuun aan la qiyaasi karin. dhakhtarka marka la geeyo mashiin baa la saarayaa, ultrasound waxaa lagu oranayaa xameytida dhagxan baa kaaga jira. badanka marka dhakhtaradu boqolkiiba 99 99.99% waxay ku oranayaan dhagxan baa kaaga jirta, marka lagaa soo saaro. maxaa kalifay inay yidhaahdaan lagaa soo saaro? maxaa yareeyey inay yacnihii sababta ay ku diideen wax kale dadka ugu sheegi waayeen waa maxay? kulli waan isla garanaynaa oo dee medical industrygu waddanka deganta bay ku xidhan tahay. dhakhtarrada dhan isku mid ma aha, isku wada caqli ma aha, isku wada qalbi ma aha. laakiin badanka intay u badan yihiin adiga gandaawanay videogan caafimaadkaaga lacag uguma jirto. xameytida inay kaa soo saaraan intaasoo kun thousands of dollars baa lagu siinayaa inay kaa soo saaraan xameytida ay ku qalaan. laakiin intay ku yidhaahdaan orada gurigii tago, kanya kaa cuno, san u jiibso, saas sameeyo, iska soo shub dhagxanta, ama saas samee, waxaa samee, aad iyo aad ba u yarta. qofkii haysta dhakhtar saa ku yidhina aad buu nasiib u leeyahay. dhakhtar waxa kugu soo hagaagay aad u fiican, laakiin aad iyo aad way u yaryihiin, aad bay u yaryihiin. marka waxaa lagu oranaya iska soo saar. maxaad samayn haddii dhakhtarka uu hadda hadduu xameytida ku xanuunayso lagugu sheegay dhagxan inay kaaga jirto, oo hadda laga yaabo inaad leedahay ballantii qoloodiga, maxaad samaynaysaa? marka biidni illah taasaan rabaa maanta in idin sheego. xameytida horto sidanay u eg tahay. taasay u eg tahay. sorry, xersug wixii idin soo sameeyay baa iga kala jabay.
It's my Play-Doh. مش عرفت كعيار طبعا. It's like this. Okay. waxay u eg tahay avocado samartid saasay u eg tahay tuumba yaro aan tuumba ahayn oo tuumba shabaha ayaa ku yaala oo saas oo kale u daloola ya dhinaca kale kaga taala on the south there inoo gaaban waxay ku rakiban tahay xidmaha yar oo kan halkan ayaan hadda ka soo saaray beerka oo xameetida beerka hoostiisa ku taalaa oo waa kan beerkii wata xameetidii marka xameetida halkaas ayaa waxay ku rakiban tahay the small intestines xidmaha yar si ay u burburiso wixii dufanaad cuntay okay walaadkana magac ma laha wali magac ma loo bixiyo idinku magac soo bixiyo okay so xameetidu saasay u eg tahay halkaasay ku taalaa xanuunada noocaasa ku dhaca maadaama aanay faa'iido dhakhtarada ugu jirin in aad caafimaad qabtid oo iska bogsatid oo iska soo shubtid dhagxanta ama si kale ama inta xataa lagu qalo qof ayaa inta la qalo dhagxanta laga soo guraa laakiin way yaryihiin hadda way sii yaraanayaan badanka waa laga soo saaraa qofka bini'aadanka wuu u baahan yahay badanka xanuunada ka yimaada xameetida weliba xagga dhagxanta ahaatee badanka waxay soo bateen markii dietka laga saaray westernka faatka wixii subag lahaa iyo wixii dufan lahaa iyo wixii saliid lahaa lanagu diray la yidhi caanaha 1% milka caba oo faatka iska ilaaliya oo saturated fat iska ilaaliya oo faatka iska ilaaliya oo maxaa la wadnaha idinku istaagaya ayuu xanuunkeedu aad iyo aad u soo batay sababtoo ah and when the bile is collected in here and it's not used it emulsifies and I think that's the word way isku dhagaysaa biyihii ku dhex jiray xameetida marka wax dufan laba aad cuni weydid halka iska dhex fadhiyaan biyo way adkaanayaan marka waxay noqonayaan dhagxamo saasoo kale ah dhagxan baa leh laakiin dhagax ma aha saa marka loo taabto waa saas u burburaya laakiin way ku adag tahay in uu soo maro godka yare saa u daloola ee ku rakiban xidmaha yar marka xanuunka waxa ku keenaya dhagxantii baa isla soo dhaafa laakiin dhagaxun baa lisaga bixiya laakiin si yaro dhagxan bay u egto yaro way kuskuusan tahay saasay u kuskuusan tahay way kala waaweyn tahay qaar baa laa leg quarter qaar baa laa leg dying marka qofku kolba dhagaxa meesha ku jira si uu kala weyn yahay xanuunkooduna uu kala badan yahay marka biidnillah okay waan isla ogaanay meesha ku taalo maxaa lahaa wixii keenay badanka waxa keena 100% maaha waxa keenay laakiin badanka waxa keena qofku inuu dufanka iska yareeyay aanu dufanka cunaynin baa keena in uu qofku dhagxanta xameetidiisu ku badato marka insha Allah taala intaasan caawa videogan inoogu joojinayaa ma rabo in aad iyo aad idinku dheerayo laakiin qalabka ay kala yara maqan bari insha Allah taala hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan idin tusayaa sida hadii xameetida dhagxan lagu sheego saad isaga soo shubi lahayd ma adka it's very simple Ilaahay subhanahu wa ta'ala mu adkaynin qofka dawaa loo baahay marka hore dheedkiisa inuu hagaajiyo yani cunto fiican uu cuno marka yeah so there you go insha Allah taala today intasan ku joojinayna xameetidu waxay tahay xanuunada ku dhaca meesha ku taalo biidnillah tomorrow maxaan sameynaynaa waxaan idin tusayaa sida la isaga soo shubo dhagxanta marka ila socda insha Allah taala share the video comment kasoo bixi commenti su'aal soo weydii and hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka noqdo if you like the video give it a thumbs up and subscribe and share with your friends your family inshallah ta'ala gaarsii wixii Soomaali ku hadlaya in xameetida dhagxanta in iska soo shubo ma adka aad bay u fududahay anigana idin tusi doono hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka noqdo waa inta iyo inshallah ta'ala soo noqoshana dambe xiiso leh I will see you guys tomorrow inshallah ta'ala take care assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh